الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما أما بعد waxaynu ka soo hadlaynaa walaalayaal sida looga hortagi karo munkarka iyo macaasida dalka iyo dadka dhexdooda ka dhacaya waxaynu halkan ku sheegaynaa waxyaabaha laga hortagi karo ee sharcigeenu inoo jideeyo waxa kamida wacdiga iyo waanada iyo wax sheega arintaas oo wax sahlan ahayn waayo dadka muslimiinta wuxuu sharcigu farayaa waajibna ay isugu leeyihiin inay iswaaniyaan oo ay wax isu sheegaan shaydaankuna waxa uu kala soo horjeedaa waswaaskiisa oo dadka waswaasinayo si uu wacdiga uga jeediyo muhiimadda iyo miisaanka uu leeyahay wacdigu daraadeed ilaahay qur-aanka waxa uu ku sheegay 25 aayadood min suurati al-baqara ila suurati at-talaaq waa aayadaha xajka ka waramaya in leeg macnaha muhiimadda uu baabkaasi leeyahay wacdiga ilaahay waxa uu xusay inuu yahay isagu akbarul waacid waacidka ugu weyn waa ilaahay ilaahay baa addoomaha markuu la hadlayaa wuxuu leeyahay yacidukum bih la'allakum tadhakkaruun ilaahay baa waxa wanaagsan uu idin sheegay idinku waaninaya inna allaha ni'ma yacidukum bih ilaahay wixii idinku ugu wanaagsanaa buu idinku waaninaya idin sheegaya rasuulkana sallallahu alayhi wasallam iyo rusushaba ilaahay wuxuu faray shaqadoodu inay noqoto waanada iyo wax sheega iyo qulubta baraarujinteeda fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha ilaahay wuxuu leeyahay dadka dhinaca xun u socda iskaga sii jeeso waxba hala dagaalami laakiin waani waa munaafiqiinti waanada u badi baa ilaahay hadal balaaqad iyo fasaaxad lana gaarsiin wixii ilaahay khayr u la doonay uu gaari doonaa sidoo kale quraanku waxa uu noo tilmaamayaa waanada in waalidka xaq loogu leeyahay oo caruurta canaan iyo hanjabaad iyo huruufuna lagula dhaqmin laakiin lagula dhaqmo waanada si qalbigooda loo baraarujiyo iyaga oo soo jeeda tusaalana wuxuu quraanku inooga dhigayaa luqmaanul hakiim oo inankiisii waaninaya wa id qaala luqmaanu libnihi wa huwa ya'idu يا بني لا تشرك بالله waxaad dadka u sheegtaa si ay uga faa'iideystaan luqmaan oo inankiisii waaninaya waanadii baa waalidka xaq loogu leeyahay kadalika alazwaaj xaaslaydii raggu dumarka waa waaninaya dumarkuna way waaninayaan saygoodii iyo odaygooda ilaahay baa wuxuu tilmaamay haddii khilaaf yimaado labada qof dhexdooda mas-uuliyadda raggii baa leh faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajic waaniya buu lahay macnaa qiimahay waanadu leeday qalbigii qofka sii jeesta la soo jeedinayaa dadka qaarkood baa sidaa ku dabco lagu maalaayo ku macaanaada haddii hadalka lagu adkeeyana didoo firdhadaba wacdiga iyo waanida ummadoo dhan baa ilaahay u faraya madaxda raaciyada maha hawl culimada qura u taala ilaahay baa wuxuu udcu ila sabiil rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan arrinkaas inuu arrin caam yahay ayaa ilaahay uu nagu baraarujinayaa intaasoo aayadoodna uu kaga waramay dadkuna waa ku kala duwan yahay dad baa laga yaabaa inay waanada ka habradaan oo ay ka xishoodaan haddaad xaqa ka xishooto xumaanta lagugu daldali haddaad dadka u yeedhi weydo adaa lagu duufsan idan wacdigu waxa uu leeyahay fawaa'id in ummadda qof waliba kaalintiisa isu taago oo wuxuu sheegi kara uu sheego oo xumaanta la diido wanaagga la faro wacdigaasi inuu noqdo dadka dhaqan u noqdo qof waliba kelmadiisa wanaagsan dhiibto waxa weeye faa'iidooyin badan ayuu leeyahay faa'iidooyinka waxa kamida zajru al-aasi wal-fajir qofkii xumaanta sameynayay in laga joojiyo oo qofkani marka kani ku yiraahdo ciddu la shaqeynay iyo cidii shaarica la joogtay iyo cidii guriga joogtay mid waliba markuu hebelow ka daa waxa laga yaabaa ciduun inuu wax ka maqlo fawaa'idka waxa kamida tadhkiirul ghaafil dadka qaarkood baa adduunyada isku ilaawo oo laga yaabaa ciyaarta iyo cunada iyo shaqada iyo waxa inuu isku ilaawo qofka qaafilkana wacdigu baraarujiyaa tajdiidul iimaan wa tahriiku fi an-nufus
iimaankii qofku mararka qaarkood buu ayuu daciifaa wacdiga ayaa soo toosiya mararka qaarkood takhwiif aw tathbiitu lmuhtadi qofka hanuunsana iska hagaagsan isaguna waxuu si akiduu helayaa wanaagga uu wado oo isku garab taaga fawaa'idkiisa waxaa ka mida tacriifu lkhalqi bilkhaaliq ilaahay baa addoommaha waxa la baraya ilaahooda subxaana wa tacaala marka aqoonta diinta lagu waaniyo ilaahay wuxuu xaq ugu leeyahay loo sheego wixii ugu weynaabay garanayaan tabsiiru nnaasi bisharaa'ic alislaami wa xuduudi faa'iidooyinka waxaa ka mid a haddii wacdigu bato dadku iyagoon dugsiyo gelin oon jaamacada gelin bay diintooda wax badan ka baranayaan markaase hadhow haddii imtixaan shaarica laga qaado aqoon badan bay xambaarsan yihin faa'iidooyinka wacdiga waxaa ka mid a kashfu makaa'idi shaytaani wa acwaanihi min aljinni walins shaydaanka iyo ehelkiisoo jin iyo insiba leh intaa shirqool bay wadaan madaakhil iyo meelo badan ay dadka ka soo galaan bay leeyihiin haddii la helo shirqooladooda cid baraarujinaysa oo dadka u sheegta waxaan inaanu horumar ahayn ilbaxnimo ahayn laakiin inkaar iyo edab darre uu yahay dad badan baa ku baraarugaya oo wixii ay daba socdaan iskaga hadhaya wacdigu wuxuu leeyahay si uu u ogaado qofka wax sheegaya aadaab culimada ay kutubahooda ku qoraan aadaabta waxaa ka mid ah an yakuuna mukhlisan fii mawcidati marka uu dadka waaninayo waa in daacadnimo jirta iyo niyad samaan ilaahay daraaddiin waa inuu shaygaa ula jeedaa iyo waxa uu dadka u sheegayo camru bnu darni ninkii la odhan jireeba aabbihiiyo waacid ahaa ayuu la hadlay markaasaa wuxuu uhi aabbo markaad adigu dadka wax u sheegayso way ilmeeyaano way ooyaan markaad si fiican u wacdido laakiin dadka kale saaxiibada ay marka wax u sheegayaan wax badan oo isbedeli ma jiro kelmad xikmada buu ku yidhi wuxuu uhi laysat ilnaa'ixatu thukla kannaa'ixati almusta'jara dee aabba isku mid maaha buu ihi taa ilmaheedii ka goblantay ee ooyeysa ee oohintaasi ay ka dhab tahay iyo ta la soo kiraystay show dadka qaarkood baa si loogu baroorto dad soo kiraysta taa la soo kiraystay dee indhahay candhuufaysanaysaa oo ay casaysanaysa marka caadi maaha oohinteedu laakiin ta goblante oohintu waa ka dhab sidaa daraaddeed wacdigu markuu qofka ka dhab yahay quluubta dadku gaadhayaa buu leeyahy daacadnimaday markaa taasi tilmaamaysa waxaa adaabta ka mid a an yakuuna caaliman bimaa yacidu bih qofkani dadka waxa uu u sheegaya inaanu qaldaynin hadduu daliil yahay iyo haddii uu xikmad kale yahayba uu saxayo caliyu bnu abi aalib waxa uu soo maray nin dadka waaninaya waxa uu ku yihi atacrifu annaasikha walmansuuq qaala laa qaala halagta wa ahlagt nin dadka wacdiyayo qisoonayuu ku yihi ma kala taqaanaa qur-aanka aayadaha la nasakhay iyo kuwa wax nasakhaya ama muxkamkaba ah si aanad dee aayad la nasakhay xukunkeedii usoo qaadan oo aanad u daliishan weeye waxau ihi ma kala aqaano haddaba adiguna waad ishalaagtay dadkiina waad halaagtay buui macnaha intuu qofku sheegaya cilmi badan bayuu lahaanine waa inuu garanayaa si fiican u fahamsan yahay an yakuuna rafiiqan fii mawcidati dadka uu waaninayo waa inuu dabciyaa sidaasuu rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam u dardaarayay oo waxa uu lahaa asxaabtii ummadda uu waanada ugu dirayay bashiraa walaa tucasiraa wayasiraa walaa tunafiraa dadka u bushaareeya oo ha ku adkaynina oo u dabciya oo ha kala firdhinina aadaabta waxaa ka mid ah an yasbira calaa aada annaas markuu qofku wax sheego ummadda waaniyo dad baa jira shaydaanku ka dhex hadlo oo kadibna dhibaato qofkan soo gaadhsiiya ama ceebeeyo caaya waa inuu sabraa hadduu qofku horay ka didayo oo uu firdhanayu damqanayo dee kaalintaa isuma taagi karo oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markuu u yimaado gaalada meelaha ay fadhiyaan uu waaniyo dee waa kii munaafiqii ibnu saluul sanka ka qabsanayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee lahaa dameerkaa aada wadato boorhkiisa iyo dhididkiisaaba ayaa idhibeen dhan ii dhaaf waxba ha ii sheegina dadka kale waxu sheeg waa rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ilaahayna waxau uhi watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri awliyada ilaahay iyo dadka saalixiintii markay wanaagga dadka gaadhsiinayaan ay isu dardaarmayaan taa waxay isu dardaarmaan in la sabro adaabta waxaa ka mid a qofka wax sheegaya dhammaanteenba wucaad baynu nahay dad wax waaninayaynu nahay waayeel baynu nahay wax badanoo xun ka damqanayo ka diirayo isaga digaye
أن يكون عاملا بما يأمر الناس وينهاهم به قفك وحا وددك أديدايا إنو اسكا دايو waxa uu dadka faraya fiicanna inuu falayo isagu haddii qowlkiisa iyo ficilkiisa uu kala kacsan yahay oo aanu dhan u wada jeedin waa laga garhelayaa qofka adiguba soo adiga sidan yeela adiguba maxaad saa u yeeshay waalidka maalan markuu caruurta wuxuu sheegayo ama ninku xaaskiisa wuxuu sheegayo oo uu waxa iska daa hebelow heblaayo hadduu waxaan isagu ku jira caruurtu waxay dhan aabbo soo adiga adiguba saa sabeeya aabbo soo adiga wax caaya aabbo soo adiga balwada leh aabbo soo adiga balanta ka bax soo adiga sigaarka caba wuxuu qofku yiraahdaa ma jiro tusaale xun buu noqonayaa aadaabta waxa kamida an yakuna fasiixa lisaan wala yalhanu fi maw'idati waxa laxniga la yiraahdana waa inuu iska daayo aanu jajabinaynin nusuusta ee isku daayo inuu laga dhageysto hadii uu markaa ka shakisan yahay inaanu saxayn وهناك أخطاء شائعة يجب الحذر منها كفاف باجرا ددك هديه جير وعدي اي كدعان مدن ان لا اسكو براروجيو waxa kamida الوعظ في اوقات غير مناسبه dadka diinta waa la nacsiinaya hadii waqti aanay diyaar ahayn lagu daldalo tala qofkii shaqo culus buu ku jira waba xanuunsanaya cusbitaal baabu jiifa shaarica soo ordaya waa la isla buuqaya marka dhagta u saarto waa laga yaabaa inuu kugu gacan sayro waqti uu diyaar yahay maaha waanadu waa in loo eegaa waa cunno waa dawo oo kale ka dhigan tahay sida dadku u qaadi karaan iyo waqtiyada ku munaasibka ah Abdullah ibn Mas'ud baa ninku yiri de khamiistun badna wacdiday wacdigaaguna wuu macaaya malaha waxa fiican inaad noogu celceliso wuxuu waxaan diidayaa ina caajistaan oo sidoo nabiguba noogu kaadkaadin jiray 10 ayaan anaguna idinku yaryaraynayaa buuli marka dadku inaanay ka daalin baa muhiim ah qadarka ay qaadi karaan la siiyo waxa aan haboonayna al-i'timaadu ala al-ahadith al-munkarati wal-akhbar al-wahiya markuu qofku daliil soo qaadanayo mid sugan oo saxiix ah oo la cuskan karo waa inuu soo qaataa iska ilaaliya qiila ruwiya حديث ضعيف كما موضوعه أن لا عسكن كرين وها أنها بونين تضحيك الناس كثيرا واستخفاف عقولهم إنانو وعدي نقنن ما ديس يما تشاشل لم يدو إغاضو قصر كاللغو بديو وحال دوني الترقيب الترهيب إنو جرا قفك مر لعبسي قليو مر لو بشاريو تنذي ناري لبدي بل حسوسيو رحمة دي إلهي عذاب كيسي عرديسا لوغو ديغو marka arimaha qiirada iyo jibada iyo jacaylkaasa ku jira marka ma aha shaygi laga dhigan lahaa wacdigu mid dadka loogu waaneeyo qosol loogu yimaado aadaabta waxa kamida التحدث باللغة الله يتحدث بلغة عالية لا تتناسب مدارك الحضور والثقافة أقوانت ضدك وحمركا كسر رأيك مستوى سرية وإنانو كلا هذا dadka aqooyahanka laga yaabo culimadu luqad gaar ah inay yeeshaan iyo muthaqafiintu dadka awaamu naas mawjad laga la hadlaabay leeyihiin marka aad ka hadasho wax ka ufuq sareeya waxa laga yaabaa inay yiraahdaan horta muxuu maanta ka waramay wadaadku ma baan fahmin anigu marka dadka waxa lagu la hadlayaa marba wixii ay u baahan yihiin iyo mawjada ay u baahan yihiin in laga la hadlo si ay u fahmaan waxa kamida aadaabtaas in furaska laga faa'iideeyo had iyo jeer sida wacdiga looga ilaalinayo waqtiyadaan qofku soo jeedin ummadu markay soo jeedo in laga faa'iideeyo مثلا النبي عليه الصلاه والسلام waqtiyadu dadka aad u waanin jireen waxa kamid aha waqtiga dagaalka la galayo weerarka loo kala baxayo cadawga halkaas soo taagan yahay oo qofkii uu cabsanayo ama uu ka filayo in adduunyada daqiiqadii ugu dambeysay ay noqoto kelmadaas waa kelmado qalbiga gaaraya oo la qaybayo qofka dhaafayn waxa kamid aha inda alqabuur markuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam xabaalaha joogu dadka aaso iyadana uu waanin jiro wacdigu gaarsiin jiray waa waqti qofka qalbigiisu soo jeedo wakadalika inda nawazil markay balaayooyin waaweyn dhacaan sidii waqtigii dayaxmadoobaadku uu dhacay oo kala waana dheer buu nabigu waaninay alayhi salaatu wassalaam waxa dhacaysa mararka qaar kood oo safar uu ku jiro qoraxda kolku arko iyo marka uu soo maro waa ki baqtiga kolku soo maro adduunyadu ku shabahay nabigu alayhi salaatu wassalaam maadaama isxaaq iyo asxaabtu isku cidlaysteen oo safar ay ku jiraan
oo adduunyo lagu mashquulsan yahay aanu jirin waxaa ka mid a qofku mowqiciisa inuu garto mowqicahu min alicraab qofka dadka waaninaya macaalimba ma faqiihba ma waacidba marka haddii uu qofkan yahay qof dadka wacdiyayo su-aalahooda iyo axkaamtooda iyo masaa'ilkooda mushkilka aan ka jawaabi karaynin dee waa inuu dadka u sheegaa culimada ku xawilaa aqoonta u leh ee waxaan takhasuska u leh dadka ka furdaamin kara mushkiladda haysata waayo dadku waxay had iyo jeer caadi waa markuu qofku aada u wacdiyo inay mushkiladahooda oo dhan kula soo ururaanay su-aalo ka weydiiyaan markaa inuu xawilo hadduu ka xishoodo waxaa laga yaabaa inuu isaguna qalad ku dhaco dadkana iyagana jahli ugu jawaabo ou halaago sidaa cali uga digaya ninkaa isaga ah aadaabta waxaa ka mid a an yakuuna xariisan calaa jamci alkalimati wa cala alkitaabi wasunnati wa taaliifi alquluub qofku inuu ku xidho ilaahay kitaabkiisa dadka ilaahay rasuulka iyo diinta dadka jeclaysiiyo iyo ahlulcilmiga iyo aqoonyaanka ummadda quluubtoodana uu isu geeyo markuu qofku dadka wacdiyayo fadaaxad iyo kala firdhin iyo kala fogeyn maaha laakiin waa walaalayn iyo isjeclaysiin iyo ilaahay xaggiisa dadku iyagoo midaysan inay u soo wada jeedsadaan haddii qofku arrimaha uu ka hor yimaadana culimmadu waa ka digayaan waxa uu lahaa abu qilaaba raximahu llah maa amaata alcilma ila alqusaas cilmiga waxa dilay buu lahaa dadkan qisooyinka qariibkaee la yaabka leh uun dadka u akhriya si ay indhahooda u soo jeediyaan ama adduunyo uun ay ugaga urursadaan iyagoo aan aqoon ku kordhinaynin nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiid sugan oo dabaraani ku sugan waxa uu ku yidhi ina bani israa'iila lamaa halakuu qasu reer banu israa'iil markii ay diinta ka leexdeen ay qalloocdeen qisaska iyo sheekada ayuunbaa shaqo u noqday oo sharciga ilaahay raaciddiisiiba way ka baydheen waxaa jira walaalayaal casrigan aynu joogno wasaa'il iyo habab iyo agab loo isticmaali karo wacdiga iyo waanada iyo waxsheegmada si dadka sida ugu waafisan loogu gaadhsiiyo waa agabkaa maanta dad badan sharka uu isticmaalayo gaaladuna lagaba yaabo inay u adeegsadaan dhinaca xun innagu waa inaynu u isticmaalnaa wax alla wax la isku gaadhsiiyo daqiiqadaha adduunyada lagu gaadhsiinayo qof waliba meeluu joogaba dabadiiyo gudo madax iyo raciyad rag iyo dumar ku yar iyo ku weyn kelmadda wanaagsan inuu dadka gaadhsiiyo kelmaddaasi saameyn aada u badan bay yeelan kartaa intaasoo qof oo guryahooda iska jooga oo sheekh wax wacdiyaba aan arag inay kaa qaataan baa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid a baa sanad dhoweyd anigoo maka jooga ayaa nin halkaa ku tukanaya baa soo cararay oo wuu ii yimid oo mobaylkiisiibaa halkii kaga soo cararay kadibna si deg deg uu ii salaamay waa sii baxaynaa wuu igu yaro dhego waan yaro qariibsaday siduu ninkan igu yaro dhegan yahay wuxuu ihi muddo dheer baan ku doondoonayay inaan ku helo alxamdulilah halkan aan kaa helay mobaylkiina xataa waa ka yimi nin baa kasoo daba qaaday maxaa dhacay baan wuxuu ihi reer la dhan baan ahaa heesaa baan ahaa waxaan ku dhex jiray ciyaaraha iyo dig iyo demta tafsiirkun baan ku yaro xidhmay waan dhegaysan jiray markii dambe ilaahay baa igu anfacay waxay taasi sabab u noqoto inaan fankiina ka hadho iyo fasaadkii aan ku jiray ilaahayna caabudo cumradanna taasaa sabab u ahayd marka haddaanad halkan iman lahayn waddankaa baan kugu iman lahaa de ismaanaan ogeyn laakiin kelmadaasunbaa gaadha waa tusaale kooban uun waxaa laga yaabaa da-yarta maarta majaajilaynaya ee meelaha ka buuqaya ee laga yaabo qaarkood inay ceeba soo bandhigayaan waxaynu ku waaninaynaa iyo dadweynaha iyo odayaasha tiifiyada soo fadhiista ee reer hebel iyo qabyaalada iyo nashuushad ka sheekeeya wacdi wixiina u rogo iyo waano si miisaanka xasanaadka ilaahay uu inoogu wada saaro wuxuunaynu baraarujinaynaa arrintani iyo xilkan inaanu ahayn mid u yaalla culimada keliya laakiin dhammaanteen qof waliba uu kaarin ku leeyahy allah inagu anfaco allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaahu min alaqwaali walafcaali walaaraa ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبضاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة